baskan ku socda buundada korkeeda si kadis ah ayuu u istaagayaa. Sam horay ayuu ugu soo baxayaa gaariga. Fiilo ayaa gacanta ka saraysa. Sam waxa uu si dhaqsi leh u dareemayaa dareen aad u xanuun badan. Wuxuuna dareemayaa in buundadu ay gariirayso. Waxay ula muuqanaysaa in wax kasta ay dhacayaan. Wuxuuna bilaabayaa in uu dareemo xaalad aan caadi ahayn. Isla waqtiga qayb ka mid ah buundada baska hortiisa ayaa si kadis ah waxa uu bilaabayaa in uu dumo. Wuu argagaxayaa Sam. Si dhaqsi leh ayuu ugu sheegayaa gabadha saaxiibadiisa ah ee Molly si ay uga soo degtaan baska. Kuwa kale ee baska saaran way soo raacayaan iyaga. Peter waxa uu arkayaa gabadha saaxiibadiisa ah ee Candace. Waxay qabsanaysaa dhanka kale ee birta buundada ku yaala ka hor inta uusan u helin fursad uu ku badbaadiyo. Candace way dhimanaysaa ayadoo biyaha ku dhacaysa. Si kastaba ha ahaatee, waqtiga ma ahan waqti la murugoodo. Sam waxa uu qabanayaa Peter, waxayna u soo ordayaan dhanka iyo dhamaadka buundada. Isaag oo ku jira suuliga gudaha baska. Markii uu soo baxo waxa uu banaanka ku arkayaa in gabi ahaanba baska uu faaruq yahay. Ka hor inta uusan baska ka soo bixin, baska biyaha ayuu ku dhacayaa. Isaag isagana way u dhamaanaysaa. Isla waqtiga qayb ka mid ah buundada ee Sam hortiisa ah waxay bilaabaysaa in ay dunto. Waqtigu wuu ordayaa. Sam gabadha saaxiibadiisa ah ayuu dhanka kale u gudbinayaa ayadoo isticmaalaysa birta buundada. Inta waqtigan lagu guda jiro, Sam waxa uu maqlayaa qofta ay isla shaqeeyaan ee Hannah ayadoo u oynaysa in la caabiyo. Hannah indhaha si fiican waxba ugama aragto. Ookiyaalaheeda qof ayaa ka darbaynaya inta ay cararayaan. Waxayna weynaysaa ookiyaalaheeda, mana awoodo in ay wax aragto. Wadada dhan uma muuqanayo. Waxayna u oynaysaa in la caabiyo. Sam ayaa soo qabanaya si uu dhanka kale ee buundada ugu soo kaxeeyo. Birta buundada ku taala ayay soo fuulaysaa ayadoo soo gaari rabto dhanka kale. Buundada way go'aysaa. Waxayna Hannah ku dhacaysaa biyaha. Kadib si dhaqsi leh ayaa baabuur si xun ugu soo dhacaya. Wuxuuna dilayaa Hannah. Ayadoo ay sidaa dhacday, Sam waxa uu arkayaa Neeg oo ah qofka ay isla shaqeeyaan oo ku dhimanaya xiriga fiilada, isagoo u soo cararaya dhankooda. Maamulaha shirkadda wuu niyad jabay. Dhanka kale Peter wuu soo degdegayaa. Wuxuu u soo boodayaa dhanka kale. Wuxuuna ku dhegayaa birta. Waqtigu wuu sii ordayaa. Sam isagana wuxuu bilaabayaa in uu soo boodo. Isagana birta ayuu qabsanayaa. Intaa kadib wuxuu daawanayaa buundada jabtay oo badda ku soo dhacaysa. Halka Sam iyo Peter ay birta saaran yihiin. Gariirka buundadu waxay ku sababaysaa in ay soo daataan baabuurka wixii saarnaa. Birarka ayaa soo daadanaya. Waxayna dilayaan Peter. Si dhaqsi leh intaa kadib jiingada xitaa way soo dhacaysaa. Waxayna kala jaraysaa Sam. Si kadis ah Sam waxa uu ku soo toosayaa argagax. Wixii dhacayay oo dhan riyo ayay ku noqonaysaa. Intaa kadib basku si kadis ah ayuu u istaagayaa. Waxayna ku sababaysaa in Sam farta uu ka dhaawacmo. Si aan macquul ahayn waxay u eg tahay riyadii uu arkay. Wayna ka nixinaysaa arrintan. Wuxuuna ku qaylinayaa in buundadu ay dumi rabto. Wuxuuna u sheegayaa qof waliba sida ugu dhaqsiyaha badan in uu uga soo baxo baska. Markii uu sidaa dhaho, Molly ayuu ka soo dejinayaa. Maamuluhu wuxuu ka baqanayaa in mas'uuliyad daro ay ku noqoto haddii uu shil ku dhaco shaqaalaha. Sidaa darteed Peter ayuu u soo dirayaa si uu u soo celiyo iyaga. Candace xitaa way ka soo dababaxaysaa si ay u soo fiiriso. Sam waxa uu noqonayaa mid aad uga dhaadhaca in arrinkaasi uu ahaa mid sax ah. Waxay u cararayaan dhamaadka buundada. Gadaashooda Neeg iyo Hannah ayaa soo baxaya. Maamulaha iyo Ethan dhammaantooda way soo wada baxayaan si ay u eegaan waxa dhacaya. Si kadis ah buundada waxay bilaabaysaa in ay dunto. Qof kasta oo argagaxsan wuxuu u soo ordayaa dhamaadka buundada. Kadib markay Sam iyo kuwii kale ka soo baxsadeen buundada, waxay arkayaan in dhammaan dhismaha buundadu ay biyaha ku dhacayaan. Peter waxa uu weydiinayaa sida uu ku ogaaday in buundadu ay dumi rabtay, laakiin Sam isaga xitaa ma oga. Intaa kadib Sam booliiska ayaa ka qaadaya dambi baaris. Wuxuuna u sheegayaa dhammaan wixii uu arkay in uu ku riyooday. Dambi baarihii gebi ahaanba ma aaminayo. Wuxuuna oranayaa adiga ayaa ka dambeeyay. Balse Sam kama yeelayo arrinka. Marka la eegay baaritaanka, buundadu waxay u duntay
burburtay iyadoo aysan si fiican u dhisin kooxdii dhismayaasha. Dhanka kale waxay ahayd shil kadis ah. Si dhaqsi leh waxay ahayd waqtiga xuska adeegyada si ay uga soo qayb galaan dhammaan dadka isla shaqeeya. Sidoo kale Candace iyo kuwa kale waxa ay Sam weydiinayaan sida uu ku ogaaday in buundadu ay dumi rabtay. Si kastaba ha ahaatee, horay ayuu ugu sheegay wax kasta uu ogaa, wuxuuna u sheegay in ay ka daayaan su'aalaha. Sidoo kale Peter isagana waxa uu oranayaa qof kasta waa in uu faraxsanaadaa sababtoo ah hadda waad badbaadeen. Marka Sam iyo kuwii kale ay ka soo tegayaan xuska, nin saaxir ah ayaa istaajinaya, wuxuuna u sheegayaa in ay u wanaagsan tahay in ay iska taxadiraan mustaqbalka maxaa yeelay dhimasho ayaa ku soo socota dhammaantooda. Kadib markii uu sidaa yidhi, si tartiib ah ayuu isaga soconayaa. Peter waxa uu oranayaa ninkan gebi ahaanba wuu waalan yahay, mana sii raacayo hadalladiisa. Si kastaba ha ahaatee, Sam waxa uu ka fikirayaa in aysan fududayn arrinkaasi. Habeenka Candace waxa ay Peter u sheegaysaa in aysan diyaar u ahayn tababarka maadaama tababarku uu soconayo 2 maalin. Peter waxa uu Candace u sheegayaa in tababarkeedu ay iska sii wadato, isagoo ka dhaadhicinaya in ay u wanaagsan tahay iyada. Candace waxa ay u laabanaysaa qolka tababarka. Candace waxa ay macalimadu u sheegaysaa in qolku uu aad u kulul yahay, sidaa darteed shaqaaluhu waxa uu shidayaa marxawadda, isagoo marxabada ku xiraya fiilo koronto ah. Ma oga in ay dhinac ka go'an tahay fiilada. Candace budada ayay gacmaha marsanaysaa, waxay isku diyaarinaysaa in ay tababarato. Way bilaabaysaa tababarka. Intaa kadib waxaa soo dhacaya musmaarka marxawadda, alwaaxa ayuu fuulayaa. Candace maysan ogaan, nasiib ayay lahayd, waxay iska sii wadatay tababarkeeda. Si kastaba ha ahaatee, hadda mukayfka biyihiisa ayaa ku soo dhifqaya fiiladii go'onayd, halka Candace ay u soo socoto. Gabadha kale ayaa shukumaan siinaysa, dhididka ayay isaga tiraysaa. Candace dhulka ayay dhiganaysaa shukumaanka, waxayna ka badbaadaysaa korontada in ay ku dhimato. Ayadoo tababarkeeda iska sii wadata sidii hore, waxay ku istaagaysaa musmaarkii, waxayna sababaysaa in ay dhacdo. Budada ayaa indhaha ka gelaysaa, isla markaa korontada ayaa qabsatay. Candace si xun ayay u soo dhacaysaa, wayna geeriyoonaysaa. Peter macquul ayay la noqon weynaysaa shilka Candace ay ku dhimatay. Kadib markii uu maqlay wararka, Sam waxa uu soo aadayaa ninkii saaxirka ahaa. Si kastaba ha ahaatee, markii uu fariisto kadib, ninkii waa uu baxay. Maalintii xigtay shaqada, Peter waxa uu oranayaa dhala qamri ah aan cabno si aan wax kasta oo dhacay isaga ilowno. Sidaa ayay sameeyeen. Isaag wuxuu la yaaban yahay dhimashada qoftii ay isla shaqaynayeen, isagoo weli wax raadinaya. Ugu dambeyn waxa uu helayaa hadiyad shahaado oo masaajeyn ah. Wuxuu aadayaa goobta masaajeynta isagoo aan filanayn. Masaajka waxaa joogta haweeney dhexdhexaad ah. Isaag kuma farxayo arrintan marka ugu horeysaba. Haweeneydii xoog ay ugu masaajeynaysaa, tifaf dab leh ay ku suraysaa, waxayna u sheegaysaa in uusan dhaqaaqin hal saac. Kadib haweeneydii way baxday ayadoon waqti dheer ka soo wareegan. Qorigii dabka ayaa ku soo dhacaya miiska buugga saaran, dab ayaana qabsanaya. Isaag si aan caadi ahayn ayuu u qaylinayaa, balse qofna uma jawaabayso. Sidaa darteed waxa uu isku dayayaa in uu baxsado. Natiijada waxay noqonaysaa in uu ka soo dhaco sariirta, waxaana soo daadanaya gaaska. Intaa kadib qof ayaa taleefankiisa soo wacaya. Gariirka taleefanka waxa uu soo ridayaa shumicii dabka, kaasoo si dhaqsi leh dab aad u weyn uga sii dhashanaya, waxaana dhacaysa dhimashada Isaag. Peter waxa uu Sam u sheegayaa shilka Isaag dhimashadiisa. Haddaba dad badan ayaa imaanaya goobta masaajka. Sam mar kale ayuu ninkii saaxirka ahaa arkaya. Sam waxa uu weydiinayaa waxa dhab ahaantii dhacaya. Ninka saaxirka ah ugu dambeyntii runta ayuu sheegayaa, wuxuuna u sheegayaa Sam iyo kuwa kale in ay musiibo ku dhiman doonaan, keliya waxay dhimashada uga fogaan karaan fursadaha. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu doonayaa in uu iyaga halhal u dilo. Habka keliya ay dhimashada uga badbaadi karaan waa in ay qof kale dilaan. Habkan waxay uga badbaadi karaan dhimashada. Intaa kadib saaxirkii marka uu baxo, Peter wuu cabsanayaa, iyaga keliya ayaa soo haray. Sam Molly waxa uu oranayaa ma dhimanayso, sababtoo ah riyada waxaan Molly ka soo bixiyay musiibadii. Sam hadalladiisa Peter aad ayuu ugu caroonayaa, wuxuuna oranayaa Molly keliya ayaad badbaadisaa, dadka kalena waxba kaama gelin, waa in aan iska sugaa dhimashadayda. Markii uu sidaa dhaho Peter wuu baxayaa. Sam iyo kuwa kale si dhaqsi leh ayay u soo raadinayaan Hena. Waqtigaa Hena hosbitaalka ayay qalniin
ugu jirta ayadoon la filanayn. Waqti dheer kama soo wareegan qalniinka kadib, dhakhtarka waxa uu xaqiiqsanayaa in feelashiisu aysan dhammaystirnayn, wuxuuna doonayaa feelasha. Markii uu baxo si kadis ah, koobka biyaha ayaa korontada ku soo daadanaya, wuxuuna sababayaa in mashiinka laysarka uu si qaldan u shaqeeyo. Laysarku waxa uu Hena ku sababayaa xanuun aad u daran ayadoo ka soo baxday mashiinka. Si kadis ah, lugta ayaa u baxaysa, waxayna ka soo dhacaysaa daaqada, wayna dhimanaysaa. Waqtigaas Sam iyo kuwa kale hosbitaalka ayay joogaan. Molly way naxsan tahay. Habeenka Molly way seexanaysaa, balse Sam marnaba ma seexan. Wuxuu kala joojin la'yahay ka fikirka musiibadii uu ku riyooday. Marka xigta wuxuu xaqiiqsanayaa in dadka dhintay ay si shil ah u wada dhinteen. Neig ayaa ku xigi doona dhimashada. Isla waqtiga wuxuu arkayaa warqadda ninkii saaxirka ahaa. Neig wuu iska taxadarayaa markii uu arrinkan maqlo. Waxa uu bilaabayaa in uu iska eega meelaha. Waxa uu yeeraya qofka ay isla shaqaynayeen. Inta ay doodayaan kor ayuu ka soo dhacayaa Neig qofka ay isla shaqaynayeen. Sidaa ayuuna ku dhimanayaa. Kadib marka ay Peter, Sam iyo Molly ay warka maqlaan, dhammaantooda way ka naxayaan waxa uu sameeyay Nate. Sidoo kale iyaga ma oga sababta uu sidaa u sameeyay. Kadib dhammaantood qofna ma doonayo in uu dhinto, wuxuuna markaa Sam u sheegayaa qaabka ay u dhimanayaan. Hadda Nate wuu baxsanayaa markii warka loo sheego. Midka xiga wuxuu noqon doonaa maamulaha. Siday u wada hadlayaan, maamuluhu wuu soo soconayaa, waxaana dilaya kiyaabaha soo booday. Habeenka shaqada Sam aad ayuu isaga taxadarayaa, maxaa yeelay shil ayuu ku dhiman karaa. Shaqada kadib Sam Molly ayuu u yeerayaa, wuxuuna doonayaa in uu la caweeyo gabadha saaxiibadiisa ah. Intaa kadib Peter xitaa wuu imaanayaa, wuuna la fariisanayaa miiska. Dhammaantood inta waqtiga lagu guda jiro, Sam waxa uu sheegayaa midka xiga in uu yahay Peter. Aad ayuu u baqanayay, wuxuuna raadinayay booskiisa qof kale in uu ku bedelo. Balse markii uu yaabay, wax qariib ah ayuu la noqday dilka. Si aan qarsoodi lahayn, Peter waxa uu bilaabay in uu ka xanaaqo Sam, sababtoo ah Sam kaliya waxa uu ka taxadarayaa Molly, balse kama taxadarayo kuwa kale. Si lama filaan ah, Peter bistoolad ayuu soo qaatay. Molly ayuu ku aadinayaa, isla markaas Sam miiska ayuu ku gadinayaa, wayna ka baxsanayaan weerarka Peter. Sam Molly ayuu qariyay, halka uu isaga uu soo doonayo Peter. Peter ma dilayo Sam, sababtoo ah micno daro ayay noqonaysaa. Kaliya wuu garaacayaa Sam. Hadda Molly markii uu ku guuldaraystay, wuxuu arkayaa dambi baarihii oo taagan iyada horteeda. Peter wuxuu walwal la'aan u tooganayaa dambi baarihii. Wuxuu yiri hadda booskayga qof kale ayaan u dilay, wuxuuna isku dayayaa in Molly ayadana uu dilo si uu u qariyo marqaatiyaha. Isla markaas Sam waxa uu Peter ku dilayaa birta kuukarka. Hadda khataruhu way dhammaadeen. Sam iyo Molly hab ay isa siinayaan, iyagoo wada hadlaya. Bistoolada dabka saaran ayaa dhawaaqaysa, way isku naxayaan, balse xabadaha kuma jiraan bistoolada. Sam waxa uu ku fikirayaa in ay ka baxsadaan dhimashada. Labadoodu aad ay u xamaasadaysan yihiin, kumana sii noolaan doonaan cabsidan joogtada ah. 2 isbuuc kadib, Sam iyo Molly diyaarad ay u raacayaan Baraasiil si ay u bilowdaan nolol cusub. Ayagoo boorsadooda xareysanaya, waxa uu maqlayaa qof ku qaylinaya diyaaraddu way qarxi rabtaa, waana in ay ka degtaan. Ninku diyaaradda waa laga saarayaa. In yar kadib, diyaaraddu way kacaysaa. Si lama filaan ah ay u bilaabaysaa in ay gariirto. Sam waxa uu arkayaa diyaaradda banaankeeda oo dab qabsaday. Qarax ayayna sababaysaa. Ugu dambeyn isaga iyo Molly ma awoodaan in ay ka baxsadaan dhimashada. Isla waqtiga dhacdadan, Neig oo baarka ka caweynaya, waxa uu saaxiibkiisa ka maqlayaa qofkii ay isla shaqaynayeen ee uu dilay in uu xanuun la dhibaataysnaa. Neig wuu la yaabayaa. Kadibna baarkii diyaaraddii qaraxday ayaa ku soo duldhacaysa, wuuna burburayaa baarka gudihiisa. Waxaa dhimanaya Neig. Kaasina waa dhammaadka filimka. Ugu dambeyn, haddii aad la yaabtay muuqaalka like saar oo subscribe dheh. Mahadsanid.